Soomaaliyay nabad Soomaaliyay nabad nabad wanaagiyo naxariis Ilaahay nimcooyo barwaaqo Soomaaliyay nabad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga faaloon doono dhaqdhaqaaqyada dhinaca bini'aadanimada ah oo ay marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar ka sameysay dalka Soomaaliya barnaamijku wuxuu soo koobi doonaa samafalka ficilka xambaarsanaa ee ay marwo Qamar Cali Cumar marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya ay ugu damqatay dadka Soomaaliyeed ee aadka u jilicsan kuwaas oo ay ugu horeeyaan agoonta ilmaha darbijiifka ah barakacayaasha ay saameeyeen abaaraha iyo colaadihii ka dhacay dalka dadkii ka soo qaxay colaadihii ka qarxay dalka Yemen ee isugu jiray Soomaali iyo Yemeniyiin iyo u istaagidda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed kuwooda ku naafoobay difaaca dalka iyo sidoo kale doorkii lama ilaawaanka ahaa ee ay ka qaadatay dhiirigelinta haweenka ee ku aadanayd in 30% qoondadii ay ku lahaayeen haweenku ay ka helaan kuraasta golayaasha dawladda marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar oo alaaba weligeed ka shaqeyn jirtay gargaarada dadka danta yar ayaa si ahamigeeda u fuliso waxa ay bilowgii sanadkii 2013 qaadatay talaabadeedii ugu horeysay waxa ayna dirtay guddi wakiil u ah kuwa oo gargaar samafal ah gaarsiiyay cusbitalka guud ee magaalada Kismaayo halka oo ay ku jireen dad dan yar ah waa kuwan dadkii la gaarsiiyay gargaarka iyo maamulka cusbitalka oo ka sheekeynaya dadaalkii marwada koobaad waa Sahri Ibrahim Dable waxaan halkan marka hore uga mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka xiga waxaan uga mahadcelinayaa walaasheen ahna madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud marwadiisi koowaad Qamar Cali Cumar waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo qiimaha leh ee ay nagu xasuusatay maadaama ay ahayd qof deeq bixiye ahaa mar walbana kaalmeyn jiray agoomaha dadka jiran dadka dhibaataysan dadka curyaanka ah runtii aad baan ugu faraxsanahay inay ka qayb geliso bukaanka jooga Jubbaland wayna ku mahadsan tahay ilaahayna jisadeeda jisa jannaha ka dhigo waxaan salaamayaa marwada madaxweynaha Qamar Cali waxaana u cadeynaynaa haddaanu nahay isbitaalkii guud ee magaalada Kismaayo lacagtii deeqda ahayd ay ugu tala gashay bukaanka isbitaalka Kismaayo jiifa inay gaadhay lacagtii bukaan walba intii loogu tala galay la siiyay dadkii ay soo wakiilatay ay farta ka saareen bukaankii
marwada koowaad ee dalka qamar cali cumar sidoo kale waxay isgarab taagtay dadkii ay saameeyeen colaadihii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe bartamihii sanadkii 2013 iyo fatahaadihii uu sameeyay webiga Shabeelle kuwa oo xilliga barakac ku ahaa xirooyin ay ciidamada AMISOM uga sameeyeen garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar oo aan waqtiga shaqaynaynin waxayna gurmad aadaminimo u sameysay qoysas ka soo barakacay 28 tuulo oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe kuwa oo isugu jiray caruur haween iyo dad kale ah والله dadka horta Jowhar ku barakacay waxay ahaayeen dad colaad iyo daad boo isugu darsameen wada magaalada daadad ka dhaceen haddana colaad ugu darsantay dadkii way qaxeen ciidamada AMISOM ee gadaal ka mareen haddii marka waxaan ku fikiraa dadkaas xataa haddii raashin loo geey lahay meel ay maraan ma lahan oo meel raashinkii la marsiiyo ma lahan airport ma lahayn oo diyaarad wax lagu gaarsiiyo danta waxay u kaliftay AMISOM inaan ka codsado in ay diyaarad si aan wax ugu geeyo dadka inay falaan airportkii sameeyeen alxamdulillaah diyaaradda raashin laguma qaadi karo yar oo la kireeyay waxay danta u kaliftay inaan lacag xansarifo oo lacagtii jawaan ku talan dadka loo geeyo iyo buskut loo qaybiyo qof walba intay gaarto runtii markaad fiirisid ajaldaas markaad fiirisid waxa kugu soo dhacayo Rwanda Hutuga iyo Tutsiga sida ay u tira badnaayeen dhibaatadaas oo kala dadkaas ku dhacday inta ka geysan karo ka geysto kale Soomaali kala taa kulaysan waa jirtaa. The people when they came they had a lot of problems. dadkani markii aan arkaynay waxay ahaayeen kuwa dhibaatooyin kala duwan haysta hase ahaatee waxa uu soo gargaaray qaybaha kala duwan ee bulshada NGO-yada ay ku jiraan waxa sidoo kale kamid ah marwada koowaad ee dalka waxaanu rajaynaynaa dadka kale oo waxay in iyaguna gurmadkaasi la mid ay u qaybiyaan ay la soo gaaraan dadkani ku dhibaataysan deegaanadani xaalada bini'aadanimo ayaa haysta dumarka xilligii foosha heli waayay isbitaal lagu umuliyo iyo gaadiid magaalada soo gaarsiiya ee ku noolaa tuulooyin miyi ah oo daryeel la'aan caafimaad dabadeed sababsaday inay ku dhacaan xanuunada isku furanka ayay marwada u istaagtay gurmashadooda iyo inay helaan daryeel caafimaad kuwa oo ay seexisay isbitaalada Muqdisho halka oo lagu dabiibayo ilaa hadda kuwoodii bogsadayna waxay u laabteen deegaanadoodii waxaan halkaan maanta u nimid gabdho dhibaataysan allaha khayr badan ka siiyee waxaan maanta bixinayna waxaa noo soo dhiibtay gabadha madaxweynaha ilaahay waxaan ka baryaynaa marwada koobaad ilaahay waxaan ka baryaynaa jannada firdawsaad inuu ugu bedelo wax alla waxay jeceshahay inuu siiyo waayo dadka maanta aan u tagnay gabdhaha qaarkood markay arkeen waa ooyeen deeqa iyo batuulo iyo waa ilmeeyeen markay arkeen sayiin gabdhahaasi waxaan wakiil ka nahay oo na soo wakiilatay marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Marwo Qamar Cali Cumar oo ugu deeqday gabdhaha Soomaaliyeed oo qaliinka lagu sameeyay isku furanka ah oo gaaraya 100 dharka ay sheegtay ugaasadu oo ah 200 oo isku joog iyo lacag ay u kaashadaan maadaama ay hadda galayaan inay guryahoodii ku noqdaan dhinaca transportationka ama baabuur raaca dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed haysata ayay aad iyo aad uga murugaysan tahay marwada madaxweynaha markii ay soo yeertay qayladhaantii dadka ka soo barakacaya Yemen oo ay dagaalo culus ka dhaceen isla markaana dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba guud ahaan garowsadeen wixii karaan ah dadka shacabka ah ee dalkaasi ku noolaa in la garab istaago xukuumadda Soomaaliyana guddi samata bixinta qaxootiga Yemen loogu magac daray u magacowday ayay marwada koobaad ee dalka mar kale isgarab taagtay karaankeedana ugu helisay waxayna gargaar nafta ay ku sicishadaan ugu rartay markabkii guddiga gurmadku uu siiyay ganacsadaha Soomaaliyeed ee soo daadgureynayay qaxootigii ku godoonsanaa magaalada Mukalla ee wadanka Yemen ayagoo dagaal ka cararay oo dhibaato ka cararay wadan kale tagay oo daris oo walaalo ah haddana maanta ay dhibaato labaad ku dhacdo mar labaad haddana ka soo cararo soo qaxay
in wax loo qabto inaan dadka ku baraarujiyo oo aan tusoon u muujiyoon u bilaabo amaba inta si hawshii socotay aan dhinacayga ka galan ku talagalay marka waxaan ummadda Soomaaliyeed walaalahay kulligood aan ku baraarujinaa ama aan u tilmaamaya wax allaale iyo wixii awoodooda inay dadkaan u qabtaan dad awal baqaxay haddana mar labaad soo qaxay xeebta iska fadhiya hooy iyo cunno iyo dhar iyo wax ay haystaan aan la arag qof walba wixii kaalinteeda ay tii kiilo bariis heli kartay tii digsi saxan heli kartay tii laba mar heli kartaba inay ummaddan u soo gurmato maanta waxay taagan tahay gurmad waxay taagan tahay dhiig joojin ummadda Soomaaliyeed iyo hooyooyinka awalba dadkan hor kici jira ummadda hogaami jira waxaan ugu baaqayaa inay sidii hore iyo si ka sii fiican u dadaalaan annagana ilaahay idinkiis wax allaale iyo wixii awoodeena waa garab galeynaa waxaan u mahad celinayaa shirkadaha isxilqaamay marwa waa ku mahadnaqaynaa alaabtaad noo dhiibtana waa kaaga mahadnaqaynaa waana kaa guddoonnay waxaana kaa ballan qaadaynaa sidaad u dhiibtay inay dadka aad ugu tala gashay u geysay aan gacanta ugu gelin doonno ayaga iyo wixii lamadana aad iyo aadna waa kugu mahadnaqaynaa dadka ka soo barakacay dagaalada Yemen ee ay soo daadgureeyeen guddigii samata bixinta qaxootiga Yemen ayay Muqdisho mar kale ku soo dhaweysay waxayna la garab istaagtay taakuleen iyo inay uga warqabto xirooyinkii Muqdisho laga dajiyay oo ay ka mid ahayd safaaradda wadankaasi uu ku leeyahay Soomaaliya ee ku taala degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho halka oo ay noloshooda ilaa iminka uga warqabto waxayna gudaha safaaradda uga hirgelisay cilbiyood iyo cusbitaal caafimaadka dadkaasi soo barakacay biyo la'aan xoogan oo ay cabasho ka muujiyeen qaxootiga Yemen ayay mar kale ku caawisay marwada koobaad ee dalka Qamar Cali Cumar inay gudaha safaaradda uga hirgeliso cilbiyood leh biyo macaan oo agabkiisa dhammaystiran yahay waa kuwan safiirka Yemen u fadhiya Soomaaliya iyo qaar ka mid ah qaxootiga oo xarig ka jarka ceelka kadib marwada uga mahad celinaya dadaalkeeda markasta ay ku daboosho baahiyahooda gaarka ah الذي ساعدتنا احنا ونشكر زيادة الحرم الرئيس الذي ساعدنا أكثر من مرة خمر مرات الرئيس وبطولة والجماعة اللي موجودين كلهم وهذا المرة أيضا زيارتها الثانية قدمت للاجئين بئر ماء جزاها الله خير ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. قمر علي عمر marwada koobaad ee dalka ayaa iyana markaasi sheegtay inay u dulqaadan weyday qayladaan ka soo yeertay dadka qaxootiga ah ee ka soo hayaamay dagaalada Yemen oo sheegay inay biyo la'aan baahsan ku kaliftay inay cabaan biyaha badda waxaan maanta aad ugu faraxsanahay oo si gaar ah aniga ugu faraxsanahay inaan isugu nimaado furitaanka ceelka marka ugu horeysan arka dadkan walaalaheena oo islaamka dhibaatada haysato iyo biyo la'aanta haysato iguna dhahan waxaan cabnaa biyaha badda runta waa ka xanuunsaday oo biyaha cad inaan la cabi karin qof walba way ogtaa wayna fahmi kartaa ilaa maad sugnaata ceelka maanta wuxuu noqday ceel biyihiisa la cabi karo oo dadka walaalaheena aan rajaynayo inay ka qabeeli doonaan ceelkaas ayaga iskale ayaga loogu talagalay ilaahay caafimaad ha ka siiyo insha Allah tacaala waa ceel waqaf ah oo gelitaan waxba aan loogu talagalin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed ee walaalahay maanta ay dhageysanayaan insha Allah qof walba wixii ay u qaban karto ummaddan dadkan dhibaataysan horteena ka muuqdo qof walba wixii u qaban karto inay u qabato sadaqadu yaraan ma lahan sinjigaanka beermiyo markasigana magacaan suma dawlahaayo sheekh Soomaaliya u inta ugamaysan harin marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar taakuleynta dadka ka soo barakacay Yemen ee waxay dadaalo ku bixisay in ay samayso qayladaan dadka waxaysta ee wadamada dibadda ku nool ku aadan taa oo ay ku gaarsiinaysay baahiyaha gaarka ah ee ay qabaan qaxootiga ka soo barakacay dagaalada Yemen iyo sidoo kale dadka kale ee danta yar ama bulshada ugu nugul ee ku sugan magaalada Muqdisho in gargaar aadaminimo ay kala qayb qaataan
ayadoo safaro iyo kulamo gaar ah kula soo qaadatay wadamo badan oo caalamka ah jaaliyadaha kala duwan ee Soomaalida ay ku dhaqan wadamada dibadda. annaga hadda dalkeen ka nimid adinka muddaad ka soo maqantihiin marka waxaan rajaynaynaa insha Allah dalkeena idinku soo dhaweyno dalka waa idin baahan yahay dadka aad iyo aad idinkugu baahan yahay waliba waxaa si qaas ah idinkugu baahan caruurta iyo haweenka. ayuu ku hadlaya magaca gabdhaha jaaliyadda DC Virginia iyo Maryland waxaan halkan caawan iskugu nimid inaan ku soo dhaweyno marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Marwo Qamar Cali Cumar. marwo waxaan ku leenahay soo dhawow waxaanoo gabdhaha caawa halkan isugu yimaadeen inaad farxad iyo qalbi furan iyo flowers anoo kugu soo dhaweynayna ku soo dhawow wadankayaga waxaan ku faraxsanahay inaad noogu timid meeshii aan ku nooleen oo nala aragtid aad naga wakiilatid wadankii maadaama aad tahay marwadii koowaad waxaan rabnaa waxaan qabno inaan fariin ku dhiibno adigana wixii aad dardaaran nooga tagaysid aan kaala harno hadduu Ilaahay yiraahdo. idinkana gabdhow waxaad ogtiin Qamar sidaad ka aragteen TV-yada wax badan inay tahay marwo Soomaaliyeed u damqata dhibaatada haysata dadkayagii badanaa waxaan markasta aragnaa Qamar inay tagto meelaha carruurta agoonta lagu xanaaneeyo that's oo anaga projectada ku xigteen rabno Qamar inaan wax kala qabanno haddii Ilaahay yiraahdo fareysinka soo socda aan sameyn doono marka Qamar waa hooyo fiican dadaasha wax badan qabata anagana waxaan u baahanahay inaan garab siino waayo wadankayga waxaad ogtihiin dhibka ugu weyn inuu haysto hooyo iyo caruur waxa aan rabno marka inaan anagu u istaagno gabdhahayagii Soomaaliyeed oo walaalahaya ah oo dhibaatadu haysato markastana aanan ku halaynin dawladda iyo dalkii kaliya sababtoo baahidu ma dabooli karto cid kaligeeda haddii aanay Soomaali isgarabsanin gabdhuhuna waa ogtiin laf dhabartii wadankayga inay yihiin wax badanna wadankayga aan ka qabanay iskuma faaninayno ragga inaan ka fiicana waa la ogyahay dalkayaga wixii dhibaato soo maray waxa badbaadiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka soo kooxay gabdhaha waxba kala harin laba shaqo u shaqeeyay ubadkooda u dayacay inay dadkoodii iyo heladoodii meel gaarsiiyaan wayna sameeyeen Ilaahayna wuu garab galay alxamdulillah shukr bil caalamiin marka walaalayaal waxaan rabaa inaan wax yar dardaarno aniga baayda waa la dardaarantay gabdhii waa la dardaarman inta hadlay marka adinkana waxaan rabaa inaan dardaaran yar aan idin faro annaga waxaan ka nimid magaalada Muqdisho inta ugu badan waa ku noolay gudihiisa runtii inta calaadaha iyo dhibaatooyinka ay dhacayeen dhibaatada ugu badan waxay ku dhacday hooyada iyo caruurta dhibaatada ku dhacday Ilaahay waan ka sokow inta badbaadisay waa gabdhihiina banaanka ku nool xataa rag ma dhahay aniga gabdhaha banaanka jooga qurba joogta gabdhahaas oo dalka inta badan ku badbaaday iyo dadka Soomaalida ay ku badbaadeen waana idin qirsan yihiin dadka magaalada Soomaaliya oo dhan dadka ku nool waa idin qirsan yihiin annagana waa idinkaga mahad celinaynaa maanta marka baahidii hore dhibaatadii hore ma jirto alxamdulillah laakiin wali waa dhibaato taagan dadka wali waa idin baahan yihiin dalka wali waa idin baahan yahay inaad intaad magaalada ku soo noqotiin gurihiina ku soo noqotiin qof walba guriga dhinaca ka jaba intay toosto hortiisa gambar dhigato koobka qaxwada ku cabto runtii waa wax farxad badan adinkana waa dareemi kartiin inay farxad ay tahay marka dadka iyo dalka iyo maxaan ku leeyahay kulli waa idin baahan yahay caruurta Soomaaliyeed oo dhibaataysan waa idin baahan tahay gacanta sharci aad ka geysan jirteen iyo mid ka sii dheer inaad ka geysatiin aan rajeynaa haddii Ilaahay raali ka dhigo insha Allah maamada koobaad ee dalka waxay sidoo kale u istaagtay taakuleenta xanaaneynta iyo ka warqabka gabdhaha agoonta ah ee lagu xanaaneeyo degmada Boondheere iyo caruur kale oo agoon ah oo iyagana goobo kala duwan lagu xanaaneeyo oo ay kamid yihiin iskuulka Sheekh Xanafi iyo xanaano kale oo ku taala degmada Cabdilcasiis iyadoo ka warqabka nolosha iyo taakuleentooda ka sokow kafaala qaaday qaar ka tirsan gabdhaha agoonta ah noloshooda iyo waxbarashadooda abid waxaa kor loogu qaadi karaa horta in dadka wax haysto gacantooda wax ku jiraan inay isku duubni muujiyaan oo ay ku fakaraan kuna talagalaan inay ilmahaas agoonta oo dhibaataysan inay kor u qaadaan oo ay caawiyaan marka aniga meelihii aan islaahay dhibaato ka jirto waa tagaa xarun kale oo agoomada gabdheed oo aniga aan caawiyo ilaa 350 gabdhood ku jiraan jirto oo aan ka warqabo xaaladooda
haddana haddii meelaha kale wax kale ka dhibaataa ka timaado waa ka qayb qaataa. waxaa jirto caruur kaloo Soomaaliyeed oo dad danyar ah oo dhibaataysan dad soo aruuriyay oo ku haya xarumo kale oo xildhibaan Yuusuf Xayle uu ka mid yahay. xaruntaasna waxaan ka qayb iskuulaad kala duwan kala dhigtaan waxaan ka qayb qaatay in aan kaalinteeda aan ka geysto. 30 gabdhood ayaan aniga mas'uuliyadooda qaadan intaan noolahay insha Allah inaan mas'uuliyadooda dhabarka iga saarin. barnaamijkan ah samaysay marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Marwo Qamar Cali Cumar waxaan leenahay Marwo ilaahay khayr ha ku siiyo. Soomaalina waxa laga rabaa in sidaas oo kale agoonta looga farxiyo waayo ilmaha aabaha leh markay iidaan kuwii aan aabaha lahayna masaakiinta ha way eegayaan. waxaad xadeen ducaad xaday maama Qamar ilaahay waxaan kaaga rajaynaynaa caafimaad khayr qaba ilaahay inuu ku siiyo ilaahay inuu cimri dheer oo cibaado suuban layni siiyo. marwada madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya xarunta ayaa ka tirsanahay xarunta waxa faxashani Xanafi maama Qamar ayaa u mahad celinaynaa inta dadka aabaale inta dharkana la soo ciid gelisay. aniga Khadiija Cali Cabdi leedahay maamada oo xash oo rasuusa oo maama Qadar ayaa u mahad celinaynaa oo Sheekh Maxamed maamadiisa ayaa mahad celinaynaa. alxamdulillah ciyaalka inta iidaankan waa iidoona alxamdulillah. waxaa dhigay dugsiga iskoolka waxaa dhiganaa Sheekh Xanafi xanada agoonta ayaa dhiganaa. anigoo magacayga Shuuta Cabdullaahi Axmed oo ka tirsan agoonta dugsiga Sheekh Xanafi oo wax ka barto waxaan u mahad celinaynaa maamada madaxweynaha federaalka Soomaaliya. Qamar Cali Cumar marwada koobaad ee dalka waxay mar kale u istaagtay daryeelka caafimaad ee Caaisha Abukar Maxamed oo ka mid ahayd dadkii dhaawaca culus uu ka soo gaaray weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen Barlido Seafood taas oo lagu dabiibayo dalka Turkiga waalidiinteedna ku weyday weerarkaasi arxan darrada ah. dhowr mar ayayna ku booqatay cisbitaalka ay kaga sugan tahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Caaisha maanta waxaan soo booqanay gabadhan yar dhibaataysan Caasho oo hooyadeed aabahoodba ay ku geeriyoodeen dagaalada iyo dhibaatooyinka magaalada ka socdo. marka waxaan ilaahay uga baryaynaa in ayada caafimaad buuxda hesho oo ilaahay caafiyo. dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay soo gurmadaan kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga inta dhibaato gaarto dhaawac gaaro kulli waa dad iska dhibaataysan gacan in loo fidiyo u baahan. marka kale intaas ka badan ma dhihi karnaa ka loo soo gurmado aad u dhibaataysanta dhaawacyo badan ay qabtaa. alxamdulillah hadeer waa dhaantaa sidii hore. waxaan leenahay dhibkan Soomaaliya hadeer ummadan ay ku hayaan ilaahay ha naga yareeyo ilaahay ha naga qabto. insha Allah taala gabadhan yartaana waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ha u soo duceeyaan hana soo gargaaraan. dad badan oo dhaawacyadii halkan waxa ku jira ayagana sidaas oo kale dhaawacyo u soo gaaray. Soomaali meel walba aan joogno waxa loo baahan yahay markaan oo kale mar alla markii la maqlo dhibaa dhacay in la isugu tago la isugu gurmado. hal dhaawac oo hal faamil oo daryeeli kara ma jiro. marka Soomaali waxaan u dirayaa qayladaan meel walba ay taagan yihiin haddii dhibaato ay dhacdo in la isu gurmado si waxaan aan hal reer kaliya loogu sii daaynin. annaga dawlad ahaana kulli wax alla wixii karaankeena ah waa sameeynayna ama ha noqoto mid diblomaasiyadda ahayd ama ha noqoto mid dhaqaale ahaa. Qamar Cali Cumar marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa door muuqda ka qaadatay sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondada ay ku lahaayeen kuraasta dawladda. waxaana shirar iyo kulamo kala duwan oo isdaba joog ah kadib
ugu dambeyn ayadoo la kaashanaysa haweenka ku nool deegaanada ay ka dhisan yihiin dowlad goboleedyada ka talagelisay in si midnimo ay ku dheehan tahay ay guul uga soo hoyaan helista awood qaybsiga dalka waxaana kulamada qaar ee ay haweenka la qaadanaysay si midnimo loogu raadiyo kala qaybgelinaysay madaxda ugu sarreysa dalka oo ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wakiilada ka kala socda ururada haweenka dowlad goboleedyada Puntland Jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo Khaatumo State ururada haweenka gobolka Banaadir Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ururada haweenka civil society-ga gabdhaha qurba joogta iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladda ay noo dhigtay marwada madaxweynaheena aynu jecelahay Marwo Qamar Cali Cumar waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa waa cawo farxadeed iyadoo gabdhihii Soomaaliyeed oo aan kala maqnayn ay ku casuman yihiin madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka oo Soomaaliyeed iyo Soomaaliya marxaladihii kala duwanaa oo ay soo martay iyo quruxda iyo lebiska iyo xaragada iyo sharafta iyo qiimaha iyo karaamada gabdhaha ka muuqata waa xaflad runtii aad iyo aad loogu farxo waana xaflad aan sugaynay muddo dheer inay gabdhaha Soomaaliyeed kula kulmaan marwada madaxweynaha iyo madaxweynahoodaba waxa kale oo aan rabaa inaan kaga farxiyo in marwadu ay madaxweynaha ka codsatay inuu idin yimaado idin salaamo idin la hadlo aad war kala qaadataan insha Allah taala waa uga mahadcelinaynaa marwada madaxweynaha Marwo Qamar oo aan runtii ku tilmaamayno hooyo naxariis badan hooyo Soomaaliyeed hooyo mar walba jecel horumarka gabdhaha hooyo garabka ka taagan gabdhaha Soomaaliyeed inay hore u socdaan dhexdana u xiratay inay u dagaalanto xuquuqda haweenka Soomaaliyeed oo halganka aan ugu jirno soddonka safka hore ka ah oo rabta inay nagu hogaamiso ilaa aan ka helno inaan la istaagin marwooyinka sharafta leh waxaan idin sheegayaa cashadan hadda waxay ka turjumaysaa Marwo Qamar inay u taagan tahay danaha haweenka iyo isku tagga haweenka Soomaaliyeed bay ka turjumaysaa marwo cashadaada sharafka leh iyo isku imaanshaha iskuulka ay keentay golahan waad ku mahadsan tahay waana ku mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol salaan ka bacdi annagu waxa weeye maanta niyadayadu cirkaasay maraysaa qofka la yiraahdo Batuulo iyo wasiirka haweenka waxay isugu ay keeneen gobolka Muqdishona waxa weeye waa magaaladayeedii asaliga ahayd oo gobolada Soomaaliyeed oo dhan laga xukumay waana ku faraxsanahay hadaan nahay Puntland inaan nimaano mar walbana waxaan u taaganahay isku imaanshaha haweenka iyo isku tagga ummadda Soomaaliyeed ay isugu imaanayaan meel walba ay joogaan haweenka Soomaaliyeed marwada madaxweynaha marwada koobaad maama Qamar salaan gacaltooyo naga gudoon annagoo ah gobol ismaamuleedka Jubbaland annagoo ah wasiiradda haweenka xuquuq islaamka Sahra Cali Samatal oo aabaheedu ahaa bodyguardka gaashaandhigga gabdhaha ka yimid gobolada ee wasiirada salaan gacaltooyo wasiiradda caafimaadka oo igu timid Jubbada ayadana waa salaamaya gabdhaha naga isin salaamaysiin bilaanta ku qoyti baydhabo salaan ma hadla isin wad isin kooyo doon ho ilaahay ero baradka isin ku kooyo reeber daala aha meel isin ku kooyta isin la kooyo doon horta dhawaada gabadha galmudug wasiiradda galmudug ayadana salaan gacaltooyaha naga gudoonto marwo annagu waxaan nahay gabdhihii Jubbaland salaan gacaltooyo oo hooyanimo naga gudoon hambaliya aan ku leenahay
cashadaadina waa kaa guddoonnay martiqaadkaadii waa kaa guddoonnay aad nagu soo sharaftay marwa waxaan u nimid shir gabdhaha Soomaaliyeed ah waxaan ku xifaaltanay oon ku dagaalsannahay oon ku diidanahay wax walba sadan waa inaan helaan baan dhahnay madaxweynaha nagana u sheeg sadan gabdhaha Soomaaliyeed waa inay helaan gabdhaha ayaga dhinta gabdhaha ayaga naaska nuujiya ragga ayaga foosha ayaga xambaara ayaga daadihiya marwo ninay hooyo dhalin ma jirto ninka madaxweynaha hooyaa dhashay wiilka socda askariga hooyaa dhashay ka iskuulka dhigay hooyaa dhashay ka muxuu ahaa macallin dugsiga hooyaa dhashay ka wadanka difaacaya hooyaa dhashay hooyo waa araxda wadanka hooyo waa laf dhabarka wadanka hooyo waa lugihii waa gacmihii waa indhihii waa araggii lama inkiri karo waxaan codsanaynaa haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed in aan helo ugu yaraan anigu konton baan hiigsanay konton sa u malayn mahay in laga qaado kii magal ahaa waxaan ku taaganahay inaan helo 30 marwo 114 quraanka cadadiisan ku salaameynaa marwo waxaan jecelahay inaad noogu timaado Jubbaland wasiirka haweenka kan caafimaadka wasiirada maamul goboleedyada iyo ururweynaha haweenka saxaafadda ciidamada meel raayso qalabka sida dhamaantii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh way ku farxad weyn inay haweenkii gobolada ku kooyeen asha sharaftan iska kooyno eedaan ka faraxsana haweenka Soomaaliyeed reed ma jartaan isin reed nisa dhakaasan wayna iska dhakaasana iska hirinaan isku duubnaan no way ka xisaabtamaanana boqolkii 30 horta may raayeen una may raay farqa ka dhuujino markii una farqa ka hirino haan kale waa qoydiisano haweenka Soomaaliyeed siyaasadda may raay una isku reebanaan magalka una kaabano oo rasaastan wana una ridaano in una ku reebno wadanka may raayso ogaana maslaxadiisa unu dhibaatada may raayso niikoyas unu may raay asaykana kore unu aqoontana ni dhaafe horta halkaaniitu waxa caawil isku keenay waa maamul goboleedyada Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo civil society dhamaan haweenka matalaya maalin walbana waxaan xasuustaa 2012 waxaa loo cabaadayay 30 garow principal 1 iyo 2 iyo gaalkacay waxaa la bariyay 30 ma aanan helin ilaa maantana waxaan taaganahay 30 horta Allah na toosiyo ilaahayna hanagu hadeeyo wixii calaf lagu leeyna waa la helayaa mar walbana waa u dagaalamayna laakiin waxa waaye wax qof walba oo maanta horta waxa farxada inaan maamul goboleed leenahay waxaan ka dardaarmayaa maamul goboleed kasto inuu halkiisa ka soo xarbiyo oo halkiisa ka soo dadaalo oo halkiisa guntiga dhiisha isaga dhigo ayaan horta ma aragtaa aan ku dardaar warinayaa halkan waa hooyadii gobolada Soomaaliya gobolka Banaadir kadib shirarkii madasha wadatashiga qaran ee hanaanka dalka looga arinsanayay ayaa waxa ka soo baxay kuwoodii ugu dambeeyay in dumarka qoondadii xusulduubka ay ugu jireen u ogolaadaan madaxdii ka qaybgalaysay madasha wadatashiga qaran sidaana dumarka Soomaaliyeed ay ka mid tahay Marwo Qamar Cali Cumar ay isugu yimaadaan xaflado madaxda madasha ay ugu mahadcelinayaan mudane madaxweyne gabdhaha Soomaaliyeed waa kuwa adigu aad u hiilinaysay ee aad nooga taariiqaysay markii aad dugsiga quraanka gashay in gabdhuhu ay kula joogeen oo gabdhahuna ay quraanka baranayeen marka dugsiga dhexe iyo dugsiga sare jaamacadana aad wada dhiganayseen gabdhaha Soomaaliyeed dareenka aad u qabto iyo sida aad u jeceshay inay xaquuqdooda helaan iyo sida aad ugu hiilisay iyo sida aadan uga seexanin inay xataa kugu kaliftay in guddi gaar ah aad u magacaawdo iyadoo gabdhii xoogooda ay maaragtay halgankoodii wataan sharafta iyo quruxda iyo bilicda
haweenka Soomaaliyeedna waxay ka turjubaanaysaa meeshan ka nimid iyo hogaaminta wanaagsan iyo dareenka Soomaalinimada waayo gabdhaha in ay labistaan qurxoonaadaan iskama imaan waxay ku timid nabadda aan haysano iyo dawladnimada waxaan aaminsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha wuu karaameeyey dawladdaada ka hor haweenka maxay ahaayeen xaquuq ahaan ilaa 60kii waxay ahaayeen kuwa la xaqiro mar aanay codaynaynin laakiin xukuumaddii ugu horreysay oo dhistay gabdhaha Soomaaliyeed waxaad isugu dartay lagii sarartii iyo garabkaad isku kaayisiis waana ku mahad celinaynaa ma ahayn kursi kale inaan raadino laakiin kuraasta aan heli doono ma noqon doonaan kuraas runtii waddankan horumar u horseeda annaga ballanqaadyada hadda maanta naloo ballanqaaday kow horta waa inay suurtoodaa oo la dhaqangeliyaa 30% helnaa labo dhowr mar ayuu madaxweynahana yiri war haddaa heshaan isbedel ma samayn doontaan annaga caawa farxadeena waa inaan madaxweynaha tusnaa aan u ballanqaadnaa nacam waa ka soo bixi doonaa midnima adduunyada lagu wada masooba hadumaan ku laban yahay dadku malama yeeshe midnima adduunyada lagu wada masooba hadumaan ku laban yahay dadku malama yeeshe midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay walaba mataano hawsha maamulaaye midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay walaba mataano hawsha maamulaaye muruqiina maalo dhulka mira ku beero muruqiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaagahay muujiya wanaaga marwada koobaad ee madaxweynaha dalka ayaa garab istaagtay dhiirigelinta ololaha wax qorista akhris la'aanta iyo soo noolaynta afka hooyo kadib markii dawladda Soomaaliya ay markii ugu horeysay burburkii kadib kulan arrinka looga arinsanayo ku casuuntay maamul goboleedyada soo noolaynta afka hooyo iyo hidaha iyo dhaqanka gaarka aan u leenahay iyo dib u dayactirkii lagu sameeyay xaruntii akademiyada dhaqanka oo dib loo furayo haweenkii lagu casuumay furitaanka ayayna marwada koobaad ee aqalka madaxtooyada Soomaaliya ku dhiirigelisay qaybtooda dhaqanka inay qaataan dumarka ayayna kulamo isugu keentay maamulada isaga kala yimid waxaan ahay inuu gudoomiyaha haweenka gobolka Nugaal caasimadda Puntland gobolada kalena waxa weeye gobolada muxuu ahay Bari Sool Sanaag iyo muxuu ahaa mudug intayadaas waxaan u soo xuslinay oo u soo orodnay in aanu magaalo madaxdayada iyo dawladayada qaranka Soomaaliyeed aan qurxino oo aanu ka qayb galno xaflad weyn oo loo dhigayay qaranka afki Soomaaliyeed oo lumay oo muxuu ahaayo burburkii iyo wixii ay dagaaladii ay ku dhaceen soo noolaynta ay soo nooleynayso wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta iyo qaranka Soomaaliya wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda warfaafinta iyo haweenka qaranka Soomaaliya sababta waxa weeye haweenka qaranka Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashaduna waa xil saaran tahay warfaafintuna waa xil saaran tahay af Soomaali haweenka qaranka Soomaaliyeed waa hooyadii afka Soomaaliga waa tii dhalisay waa tii barbaarisay waa tii korisay haday ka soo harto afkeeni wuu burburay waxa hindi iyo muxuu ahaayo af ajnabi oo kale oo muxuu ahaa Yuruba iyo wax walba waa baabay wadankii waa laga kala tagay kuwii dabada jiray iska day kuwii dalka joogay baa TV-yadii iyo muxuu ahaayo wax walba muxuu ahaa kharibeen mid xusuusanaya lagu ma arko halka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo naga mahad celinaya dawladda federaaliga Xasan Sheekh Maxamuud oo ku talaabsaday in uu muxuu ahaayo afkii Soomaaliga soo nooleeyo
sababta waxaan madaxweynaha ka fulin ma fulaanin iyo ilaahay weynaa halkaa waa hambaliyo haddaan reer Puntland nahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gobolada kalena waa nala mid baan u malaynaa midda kale waxa weeye annagu maanta cabsimaadan sharafta badan ay noo qabatay marwada madaxweynaha qamar cali cumar aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana kaaga mahad celinaynaa canab muxuu ahaay cali cumar waana ku ognahay aanu aad iyo aad baanu meel dheer u geynaynaa sababta ah waxa weeye waa sharaf waa qiimeyn shalayna waxaan nacsamay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyagana sida oo kale waa u mahad celinaynaa waxa weeye xalay telefoonada ayaan ku diraynay halkaas maanta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed baan nacsamay waxaan muxuu ahaay birina waxaan nacsamaysa marwada madaxweynaha qamar cali cumar faysaasan ku jiraa farxadaasaan ku jiraa ogaada durbaanka la timaayay ما شاء الله idinka idin dhacatay yaleen waxaan halka fadhida marwada madaxweynaha koowaad marwa qamar oo aan u salaamayo salaangalka caltooyo oo aan marnaba ilaawi karayn oo xusuus mudan oo taariikh leh oo baalka ku qormaysa taariikhda Soomaaliya waxaan salaamayaa gabadha walaashaya oo qaaliga ah oo aan u nimi gudoomiyaha qaranka haweenka Soomaaliya oo ay ururka haweenka qaranka Soomaaliya oo aan marna aanan ilaawi karin sida sharafta leh intii aan joognay ay nooga warhayeen noo soo dhaweynayeen meel walba si walba ay nooga warhayeen aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan islahaa gudoomiyaha qaranka Puntland ma waxaan islahaa gabar la mid ma jiro laakiin maanta goortan halka imi wax badan baan ii baxay waxaan salaamayaa wasiiradii waxaan salaamayaa gabdhaha ururka haweenku xumi canab oo qof qaaliya ah oo halkan fadhida gabdhaha Soomaaliyeed aan tahaniyada ku soo walaashay barasho wanaagsan dadkoo dhan islaamayno qofta la yiraahdo maxay ahayd halka fadhida Suldaano in badan oo wadnaha nagaga taala waligay ma buraanburi adduunka intaan saaraa laakiin maanta maadaama hooyooyinkii Soomaaliyeed isu yimaadeen waxay anagu hooyooyin baan waxalinin gaaban codkiina la gaaban qarankii Soomaaliya waad ogtiin burburku intuu dhacay haweenka Soomaaliyeed iyaga cudud mideysanaha iyaga Soomaaliya la baxsaday iyaga maatadii la baxsaday iyaga dayarkii la baxsaday laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inaanu hor fadhino marwadii madaxweynaha oo masaakinta bayska hoose aan arkayno TV-yada ka daawanaynay waxa farxad baanta noo ah inaanu maanta horteeda fadhino oo qada wanaagsan oo karisan wada sheekaysanayno marwa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haween baanu nahay salaad casar baanu tukanay waxaan ilaahay subxaana qaadira ka rajaynaynaa 100 sano iyo 10 sano inaan marwada madaxweynaha iyo marwadiisuba inay dalka noo sii joogaan insha Allah bismillaah qamar marta waxa weeye waxa tahay gabadhii marwada koobaad koofiyada haykalka ugu kore gabdhaha Soomaaliyeed baa tahay midda uurka ku jidha iyo midda bugta iyo midda dhalatay iyo midda weyn iyo ta shaqaynaysa hooyadoodii waa adiga 14 iyo boqolka ninkaagu u dhaartay adna waad ka daba dhaaratay hooyada yaa tahay nin baa rati ku sabsabay wuxuu yiri afartii lagu talayaa kaaga toobeenad uga tagaysaa horta qado iyo sharaxaad iyo soo dhaweyn gabdhaha mudnaan baad u heshay annaguna waa kugu tacjiilno waa kugu ayidnay oo hooyada yaad ku tahay waa waajib shukri ala waajib weeyaan waxaan u mahad celinayaa oo ku hadlay afka gabdhaha casumaada marwaduna casuntay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh casumaaduna casubay oo sharafta badneyd baa ka wareysay waan ka mahad celinayaa iyadana waxa ku xigtay gabdhaha qaranka Soomaaliyeed oo marna inaba aan soo qiimeyn karinin qiimahooda iyo sharaftooda aan koobi karinin oo ay midda ugu hooseysa iyo midda ugu koreysa gabdhaha qaranka kulliga salaam baan ugu wadateynaa maadaama aanu dhoofayno waddankeega aadayno waxa ku xigtay marwada oo maanta ugu dambeysay gurigeeda qiimaha badan waliga laba kala waysa saaray laakiin laba tagooga isba saarin ma aanan islahayn guriga madaxweynaha inta tagtaan qabanlaydi ka karinaya ma aanan lahayn laakiin waxa weeyaan laakiin shukri ala waajib bay kugu tahay waxa weeye waxaanu ka nimid goboladayada waanu noqonaynaa fakar badan oo qiimo badan waan geynaynaa intaas weey waxaanu istaagay أنا كهاد الله يرتم حنا مجاي وعن شيخ حسن وحنا كهاد الله يا أفكر قبلها جبلان أنا كهاد الله يا سأسكين براي مركب وحواية يفرح الجليل قبلها قرن الصوماليات سود وموتودي يفرح دودي وحاكر يفرح الجليل حكى المكان مين وحنكس أمي وحلفت المغير إيهيد نورين توحبر الشذ الصومالي يا نقل كيهده يفرح الجليل habka loo dhisay guriga ayaga ahaa
sida loo soo dhaweeyey iyo dadkii Soomaaliyeed gobolada ka yimid oo is arag 24 sano oo is aragna aad iyo aad farxad geliyay insha Allah billahi kareem si wada waan rabaa sidaan is ka badan insha Allah waan insha Allah waan yeeli doonaa maanta maalinteedana hidaha iyo dhaqanka waxbarashada tribka damas ku soo noqono billahi kareem tan tu ka soo horsan rajeynaya rajadeyda muxuu ahaa hadalka inaan sii badiyo maaha gabdhaha waa dhan baa isugaayo aad iyo aad iyo aad iyo aad waxaan idinku mahadinayaa sida sharafta lahayd soo istaagay sida sharafta lahayd oo muxuu ahaayay gabdhaha qaranka Soomaaliyeed ay shalay xafladda ay noo dhigeen xalay telefoonka kama aan seexan gabdhaha naga soo dhaweyntooda iyo sharaftooda iyo hay'adooda naga shakiinina baritaan waxaan gabdhihii qaranka ee gabadha madaxweynaha yaan ka bartaqaadanay gurigii qasriga dalka ana ka bartaqaadan marwada koowaad ee madaxweynaha naga oo sharafta badan qamar cali cumar marwada koobaad ee aqalka madaxtooyada Soomaaliya waxay cod dheer ku taageertay waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed si loola dagaalamo jahliga iyo faqriga loona soo saaro jiil waxbartay oo gabdha ah loona istaago horumarinta gabdhaha Soomaaliyeed maadaama dumarku yihiin bulsho waliba laf dhabarteeda waxaan rabaa inaan codkaygu ku biiriyo dhiirigelinta waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu baaqayaa inay dhaxda u xirtaan waxbarashada gabdhahooda maadaama aan ahay hooyo gabdha leh waxaan dareensanahay inay u baahan yihiin inay gabdhuhu waxbartaan sababtoo ah gabadha maanta waa hooyada berrito si ay u soo saarto bulsho waxtar leh mustaqbalka insha Allah ugu dambeyntii waxaan gabdhaha Soomaaliyeed kula dardaarmayaa inay waxbartaan kana faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee dawladda federaalka Soomaaliya ay bixinayso iyo kuwa hay'adaha kaleba si aad berrito uga qayb qaadataan horumarka dadkiina iyo dalkiina dhamaanteen waxaan ciribtiraynaa jahliga iyo faqri waxaan rabaa inaan cod dheer aad u dheer aan ku iraahdo gabdhaha waa inaan waxbarno hooyooyinka iyo aabayaasha waa inaan gabdhaha Soomaaliyeed waxbarno oo aan ka saarno jahliga si ay u noqdaan kuwa mustaqbalka waxtaro oo adduunyada la jaan qaado marwada koobaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qamar cali cumar waa qof wax badan ku soo dhex jiray taakuleenta iyo la socodka nolosha dadka danta yar ee bulshada ugu jilicsan barnaamij
mid iyo laba aan laguma soo koobi karo wixii ay qabatay waxaana barnaamijkan ugu talagalnay inaan qayb ka mid ah gargaaradeedii aadaminimo ay sanadadii lasoo dhaafay ka fulisay gudaha dalka Soomaaliya ku muujino barnaamijyadan u gargaaridda samafalka iyo sidoo kale in ay wax ka ogaato nolosha dadka danta yar ay bulshada ugu jilicsan ay ku nool yihiin ayaan waxaan wax ka weydiinay hadafka guud ee ay ka leedahay dhaqdhaqaaqyada gargaarka aadaminimo iyo waxa ay ku dooratay. والله arrinkaas inaan sameeyo waxa ugu dhaliyay damiirkayga markaan arkay dadka dhibaataysan ilmaha dhibaataysan waxa ugu dhaliyay damiirkayga inaan howlahaas sameeyo mar walbana waa jecelahay inaan sameeyo intii aan noolahay insha Allah ilaa aan garaadsadana howl aan soo waday eedo korinta carruurta iyo hawsha isku dhex wada jiray. guud ahaan daawadayaal dhageystayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka gaarka ahaa ee aan kaga faaloonaynay dhaqdhaqaaqyada dhinaca aadaminimada ah ee ay marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar ka sameysay gudaha dalka Soomaaliya. barnaamijka intii uu socday waxa idin daadihinayay halkan idin kaga soo saaray anigoo ah Sugaal Macallin Maxamuud. dhammaan saaxiibadii gacanta iga siiyay barnaamijkan ayaan mahad gaar u celinayaa. dhammaanteen oo isku duubanna waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.